madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maalinimadii shalay ahayd soo gaaray magaalada Tani Kismaayo xarunta maamul goboleedka Jubbaland ayaa maantay kulamo la qaatay labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya haatan ku sugan magaalada Tani Kismaayo xarunta maamul goboleedka Jubbaland madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya kulankan ay maanta wada qaateen ayaa inta badan waxa ay kaga hadlayeen siyaasadda cusub ee dalka Soomaaliya iyo waliba arrimaha doorashooyinka dhawaan ka qabsoomi doona dalka Soomaaliya intaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo kormeer booqasho ku mariyay xariyaha ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba kuwa maamul goboleedka Jubbaland ayaa ciidamada waxa uu kula dardaarmay inay difaacaan dalkooda diintooda iyo waliba dadnimadooda ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhisan oo isku dhafan oo Soomaaliya oo dhan ka kooban oo muuqaal qaran leh ayaa tihiin runtii waa bilowga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee mustaqbalka sida uu noqonayo la doonayo ee siyaasadda dawladda ka turjumaysa ayaad waxaad u tihiin foolhoraad waxaadna u tihiin bilow hawl kasta oo la bilaabayo way dhib badan tahay waad ka macno badan tihiin waana muxuu ahaay ka muraad dheer tihiin iyo ujeedada aad u jirtaan kuwa badan oo wiilal Soomaaliyeed ayagana oo dabcan dagaalkii kula jira oo dagaalamaya oo dhimanaya oo dhaawacmaya laakiin fursadu aanay wali soo gaarin in ay noqdaan sida aad tihiin adika oo aadan u taagnayn astaan ama calaamad reer gaara aadan u taagnayn ee aad ka koobantaan reeraha Soomaaliyeed oo dhan waa sida loo leeyahay muuqaal qaran ayaad leedihiin in ay xuquuqdii askari ciidan xoog dalka Soomaaliyeed oo heer qaran ah uu lahaan jiray dawladdiinu inta ay tabarteeda la egtahay mar walba heli doontaan dawladdiinu hadba inta awoodeedu ay la egtahay ayaad heli doontaan oo muhiimadda koobaadna waliba muxuu ahay la idin siinaya ayagoo la ciidanka amniga guud ahaan ciidamada qalabka sida hal la siiyo waa naftiruuranimo dheeri ah waay wixii loo baahnaay oo maxaan ku raacay ciidan u baahnaayo dhan ayaa maqan oo aan idinka maqan waa garanayna xuquuq badana maqan qalab badana maqan wax badana maqan laakiin idinkuba shala ma jirina waxa maqanna berri ilaahay idinkiis way jirayaan hadii aad leeyahay aad bay u jirayaan marka waa idin salaamaya waxaan idin leeyahay hawsha aad haysaan hawl la wada og yahay oo geesinimo dheeri u baahanood adikuna aad la timaadeen waaye guuleystaan idin leeyahay dawladda federaalka boqolkiiba boqol ay ku garab taagan tahay dadaalka ay wado dawladda Jubbaland ee lagula dirirayo nimanka cadawga ah ee nabadiidka ee deegaankan muxuu ahay Jubbaland jooga sida dawlad goboleed kasta ahi midka jooga ee daacishka qandala ka hadlaya ee jooga iyo kan maxaan ku iraadahay raas gambooni iyo maxaan ku iraadahay ku dhuumanayo inta ka dhaxle waxa meesha ka jira waa waxaas dadaalkaasna waaye iyo qiimaha aad ku fadhidaan waa kaas oo qoraxda maanta u fadhidaan waa idin bogaadinaya waa idin habaleynaya aad iyo aad u mahadsantihiin guul iyo wanaag aan idin rajeynaya dawladdiina dowlad goboleedka Jubbaland iyo dawladda federaalka intaba ku kalsoonaada wixii la waaye tabara loo waayay in aan muxuu ahay hawsha aad haysaan aan macna lahayn daraadeed looma waayin tabartuna maalin walba way soo kordhaysaa sharaf waxaan maanta haysanaa ma jirin berina waxa naga dhimo si kastaba haatee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ballan qaaday inay dhawaan ciidamada heli doonaan agab ay kula diriraan cadawga Soomaaliya intaasi kadib madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dib uga dhoofay galabta garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo xarunta maamul goboleedka Jubbaland waxaana madaxweynaha u kicintimay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya Cabdullaahi Cabdi Cali Rubaanyare TV-ga caalamiga waa bari magaalada Kismaayo.